السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا لقال الجنة كذلك حسبت فضل سبسكرايب قره هذا جوكت لايك نودي كومنتي ما أنت يا فيديو عزب maalintaas waxay ahayd maalin aad u murug ah sababtoo ah maanta waxaan geeriyooday aabahay anigana aad ayaan u murugsanaa. maalin walba waxaan fiirsan jiray sawiradiisa balse maalintaas waxaan arkay wax aad iga argagaxiya oo aan ka cabsada aniga. kadib hooyaday ayaan qolka uga imaaday waxaan dhahay hooyo waan baqayaa aniga. waxay igu tiri inta soo seex waan iska seexday kadib isla markiiba meesha ani hooyaday maalintaas waan soo baxnay iyo walaalkay iga yar waxaan aadaynay iskuulka aadna waan u faraxsanaynay maadaama aan iloobi dhimashadii aabahay balse inkastoo aan iloobi waayay haddana mar walba waxay ila noqotaa inuu horteyda joogo oo agteeda uu taagan yahay oo kale. cabsi aad u badanna waan dareemaa. walaalkay ayaan waxaan dhihi jiray inta qof miyaa taagan horteyda fiiribo. wuxuu igu dhihi jiray isaga maya balse aniga keliga ayaa arki jiray waxaas oo dad kale ma aysan ila arki jirin. markaan weynaaday ilaa iyo tan iyo maanta waxaas way idaba socdeen oo waan iloobi waayey. maalin macalinkayga ayaa su-aalo i weydiiyey waan ka jawaabi waayey wuu igu qayliyey kadib wuxuuna igu yiri galaaska iskuulka ma imaan kartid adigoo waalidkaaga kula soconin. balse maalintaas wixii aabahay aan u malay jiray qof weeg ayuu iska dhigi jiray mar walba laakiin ma ahayn aabahayga. iskuulkayga ayaan ku soo laabtay maalintaas anigoo murugsan aadna waan u baqaayay. galaaska qofna ma aysan joogin maalintaas keligay ayaan joogay. waxaan arkay wax aad aan ugu naxo oon uga cabsado oo aan iloobi waayay tan iyo maanta niyadeyda ku taagan. mar walba waan fiirina cabsi aad u fara badan ayaan dareemi jiray waxaan isku dayi jiray inaanan marnaba aanan fiirinin. waxaas mar wuxuu isku soo ekeysiin jiray wejiga aabahay marna hooyaday ayuu iska soo dhigi jiray. habeenkii xitaa waan seexin kari waayay cabsi darteeda. fadlan hadda janalka ku xisabtaa wala subscribe gare hore hadda joogtay like comment